nin iyo xaaskiisa ayaa isku dhex dagaalay gudaha diyaaradda hawada ku jirta. Intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad na soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsan. Mas'uuliyiinta diyaaradda ayaa sheegtay in duulimaadkii qashqashaadka uu ka dhex dhacay ee tirsigeedu ahaa LH 772 ay ka degtay magaalada Delhi ee dalka India. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ANI, shirkadda ayaa go'aansatay in aan la sii wadi karin duulimaadka kadib markii ay rakaabka diyaaradda qashqashaad badan iyo dhaqdhaqaaq badan ay ka dhex sameeyeen diyaaradda, taas oo duuliyaashii ku kaliftay ugu dambeyn in ay ka dejiyaan magaalada Delhi ee dalka India, halkaasi oo markii hore aysan u socon. Ilaalada duulimaadyada ee magaalada Delhi ayaa sheegay in aysan ogeyn sababta ka dambeysa in ninkan iyo xaaskiisa ay ku dhex dagaalamaan diyaaradda gudaheeda, weliba iyada oo ku jirta duulimaad toos ah. Sababtaasi ayay sheegeen in duuliyihii uu ku qasbanaaday in uu u leexiyo diyaaradda dhanka magaalada Delhi. Dhacdadaasi foosha xun kadib, shirkaddii lahayd diyaaraddii lagu dhex dagaalamay waxa ay sheegtay in ninkan iyo xaaskiisa oo ah reer Jarmal laga reebay halkii ay u socdeen, diyaaraddana laga dejiyay kadib markii ay soo caga dhigatay magaalada Delhi ee dalka India. Muhiimadda ugu weyni waa badqabka rakaabka iyo shaqaalaha, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkaddan iska leh diyaaraddii lagu dhex dagaalamay. Diyaaradda ayaa ku degtay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Delhi ee dalka India, halka markii hore ay u socotay dalka Pakistan, waxayna awoodi weyday in ay sii wadato safarkeeda weliba iyada oo badqabta. Lamaanaha ku dhex dagaalamay diyaaradda dhexdeeda ayaa waxaa maamulka diyaaradda ay ku wareejiyeen ciidamada ammaanka ee garoonka magaalada Delhi.